Isabel dos Santos waa haweeney u dhalatay dalka Angola waana da'da ugu weyn carruurta uu dhalay madaxweynihii hore ee dalka Angola José Eduardo dos Santos. Isabel dos Santos waxay dhalatay 20kii bishii Abriil sanadii 1973 haatan da'deedu waa 47 jir. Waa ganacsato waxaana wargeyska The Forbes uu hantideeda ku qiimeeyay lacag dhan 2.2 bilyan oo dollar, taas oo ka dhigan in ay tahay haweeneyda ugu taajirsan qaaradda Afrika. sanadii 2002 ayaa Isabel waxay isguursadeen ninka ay isku da'da yihiin ee Sindika Dukolo oo uu dhalay maalqabeenka u dhashay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, waxaana arooskooda oo ka dhacay dalka Belgiumka ku baxay qarash gaaraya 4 milyan oo dollar, iyadoona ay ka soo qayb galeen dad ay tiradoodu gaarayso 800 oo qof oo cunadooda laga keenay dalka Faransiiska. waxayna haatan haystaan 3 carruur ah lamaanahan, walow warbaahinta qaar ay sheegayaan in carruurta Isabel ay yihiin 4. madaxweynihii hore ee Angola ahna aabaha dhalay Isabel dos Santos, José Eduardo dos Santos, oo dalkaasi xukumayay in ka badan 30 sano ayaa haatan ku eedeysan in wax isdabamarin uu ku sameeyay hanti qaran. Isabel dos Santos ayaa laftigeedu waxaa la sheegaa in hantida ugu badan ay uga timid dhanka qoyskeeda oo dalkaasi maamulayay. shaqadii ugu horeysay ee ay qabatay Isabel oo ahayd ganacsi ayaa waxa ay bilowday sanadii 1997 waxayna furtay hotel lagu magacaabo Miami Beach Club. Isabel dos Santos waxay madax ka soo noqotay shirkado badan oo dalkaasi Angola ugu waaweyn oo ay ka mid tahay shirkadda shidaalka dalkaasi iyo shirkadda Focus on Telecommunications. sanadii 2016 xilligaas oo aabaheed uu xilka hayay ayaa waxa uu u magacaabay madaxa shirkadda shidaalka Angola, waxaana ka dhashay buuq badan, balse shaqadaasi waxaa sanadii 2017 ka xayuubiyay madaxweynihii bedelay aabaheed. Isabel dos Santos ayaa dhawaan shaacisay in ay doonayso in ay u tartanto xilka madaxweynenimo ee dalkeeda, waxayna ka dhawaajisay mar ay BBC-da waraysi siinaysay in ay tahay wadaniyad isla markaana wax badan ka bedeli karta xaaladda dalkeeda marka ay madaxweyne noqoto. in ay u tartanto xilka ugu sarreeya ee dalka ay u dhalatay ayaa ah mid aan la filaynin, sababtoo ah waxaa horaan looga bartay in ay ganacsiyo samayso. maxkamadda ku taala dalka Angola ayaa bishii la soo dhaafay amartay in la xanibo akoonnada ay ku leedahay bangiyada dalkaas, gaar ahaan dhaqaalihii ay ka samaysay shirkadda shidaalka Angola kadib markii lagu soo eedeeyay musuqmaasuq iyo in hantidaasi ay ku heshay wax isdabamarin.